iyo kuwa amisom oo isgarabsanaya ayaa si nabadgelyo ah kula wareegay deegaano hoos yimaada gobolka Shabeellada Hoose. madaxda maamulka gobolka Shabeellada Hoose iyo saraakiisha ciidamada Soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa si diiran lagu soo dhaweeyay deegaanada ay la wareegeen sida deegaanada Mubaarak Daarusalaam Isoomarey Bulakaasho Banhablo iyo Lungarre Shaangare Cali Guble oo dhammaantood ah deegaano istaraatiiji ah. waxaa ii muuqanaysay in dadka deegaanka ay si diiran u soo dhaweeyeen maamulka cusub ee la wareegay deegaanadaasi oo horay u maamuli jireen ururka Al-Shabaab. taliyaha ciidamada amisom ee saddexda gobol Banaadir Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe Colonel Joseph ayaa dhankiisa xusay in Al-Shabaab laga xureeyay inta badan deegaanada gobolka Shabeellada Hoose ayna dhawaan u jihaysan doonaan deegaanada ay ka mid yihiin Qoryooley. We shall give priorities to the nearby places to make sure that Al-Shabaab is totally removed from these areas and people stay in peace. Our next targets are well known, and wherever Al-Shabaab is, they should know that they are the targets. I may not say that our next target is this point A, this point B, but our next target is where the Al-Shabaabs are. gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabduqaadir Sheekh Maxamed Nuur Siidi oo dadka deegaanadaasi kula hadlayay meel fagaara ah ayaa sheegay in ay isi soo dhiibeen saraakiil ka tirsanaa Al-Shabaab isagoona dhinaca kale xusay in dawladda Soomaaliya lala shaqeeyo. hadda maxaan ku raadaa codsiyaasha ka imaanaya deegaanada sida Qoryooley sida Buulmareer Kutwaari Sablaali Baraawe waa soo soconaa. waxaan ugu mahadcelinaynaa Tortorow iyo deegaanada hoos yimaada si nolol soo dhaweeyay sida maxaan ku raadaa Farsooley iyo Ali Guble si nolol soo dhaweeyay saakay deegaanada kale oo ku soconana maxaan ku raadaa codsiga noogu yimid nimanka khawaarijta waxaan ognahay inay beel walba saareen 300 milyan 200 milyan dadkii inay furanayaan oo ay dhacayaan waxay ka gudbeen maxaan ku raadaa xalay ilaa iyo dhowr gaari ilaa iyo nimanka khawaarijta maxaan wixii ku haray Shabeellada Hoose oo dhan waxay ka gudbeen leega iyo meel u dhaxeeya aqbir weyn ay ka gudbeen tabeelaha oo goobaan leh ay u sii gurmayaan ilaa gobolada dhexe iyo Hiiraan Jallaqsi iyo Bulburde. maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa wada dadaalo ku aadan sidii Al-Shabaab looga sifeyn lahaa deegaano ay ku harsan yihiin oo ilaa iyo haatan ay maamulaan. Maxamed Cali Weheliye Universal TV deegaanka Mubaarak Shabeellada Hoose.